mida golayaasha khaatumo hadday baarlamaan tahay iyo hadday wasiirro qayba tahayba waxaanu isu xilqaarnay oo isugu nimi in arrimaha wadahadalka Somaliland iyo khaatumo aan si miyir leh oo dhug leh oo miisaan leh aan u eegno wixii barnaamijkii heshiiskii 2017 bishii Oktoobar 20keedii aynaba saxiixii dhacay heshiiskii ahaa lambarka 12 oo heshiiskii aynaba kamid ahaa in la qarameeyo ciidamada khaatumo ee hubeysan arrintaas waan uga mahadcelinaynaa xukuumadda waa arrin ay qayb weyn ka fushay qodobkaas qaybtiisii hore ee lagu ballamay qaramaynta ciidamadu waa fulay wixii fulayna waa la isaga mahadnaqayaa wixii qabya inoo hina waa wax inoo wadayaan wixii halayna sida ugu dhaqsaha badan ama sidaas la mid ah in iyadana loo fuliyo ugu dambayna qodobadan hadda la tirinayay oo 13 ka soo baxay heshiisku sidoo loo heshiiyay u jira una dhaqan galay kaliya waxa weeye wixii lagu heshiiyay maxaa inooga dhiman maxaa dardargelin u baahan maxaa inooga harsan baa laga hadlayaa wax badan oo la qabtay waa la sheegay ciidamada kamida ciidamada faces baa laga dhigay faceka hore waxay ahayd in ciidanka khaatumo tira cayiman la qarameeyo tiradii cayinayd ee loogu talagalay xukuumadda iyo khaatumoba isla qaadatay oo facekeedii hore waa hirgalay waxa kale oo jira ciidamadiiba waanu qaramaynay oo waanu wareejinay oo ciidamadiiba ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland bay ka mid yihiin waaba ku sheegay in bariya saa dambe la rarayo taliyaha ciidamada Soomaaliya Nuux Taani wuxuu amray